بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلامتو وعنا وناكسن داوديال مeel kastoo aad joogtaan soo dhawaada ku soo dhawaada channelka Daljir Media waxaan idinka codsanaynaa inaad channelka subscribe saartaan muuqaalkan sii share gareysaan barta sidoo kale Facebook aan ku leenahay Daljir Media ayadana aad follow iyo share iyo like isku dirtaan si aan ugu dhiirano inaan muuqaalo cusub oo sidan oo kale ah idin soo duubno waxaan isul taagaynaa caawa haddii Allah uu dirgolada dhacdada baraha bulshada aadka ugu qabsatay ee ah arinta Cabdirasaaq Xaaji Catoosh wariyihii hore ee BBC-da oo dabcan leeyahay waxa ay gacan qaaday oday Soomaaliyeed dhacdadaas oo ka dhacday magaalada Jigjiga dhowr qodob ama dhowr dhinac ayaan ka fiirinaynaa dhacdada marka hore Cabdirasaaq Xaaji Catoosh waa shakhsi bili aadan ah Soomaali ah qof kasta oo bili aadan ah wixii ka dhici lahaa baa isagana ka dhacaya sida hadda baraha bulshada la soo geliyay ama odayaasha dhaqanka ee hadlay aan ka dhageysanayna waxa la leeyahay gacan qaad ayaa ka dhacay gacan qaadku waxa uu ka dhashay kadib markii ay murmeen oo muran labada qof soo kala dhex galay Cabdirasaaq Catoosh sida uu sheegnay waa shakhsi bili aadan ah wax kasta ka dhici kara sideedaba waxa la yiraahdaa sheeko kasta waxay leedahay laba dhinac every story has two sides ilaa hadda hal dhinac aan inoo warramay oo aan sheekada ka maqalnay oo aan ka dhageysanay dhinacii kale oo ahaa Cabdirasaaq Catoosh weli isagoo hadlaya maana arkin laakiin waxaa moodaa in farcilinta arrinta ka dhalatay oo ku socota dhinaca Cabdirasaaq Catoosh ay soo badanayso oo dhinacyo badan markaas gaartay kaas waa qodobka labaad dad badan baa waxa ay leeyihiin Cabdirasaaq Catoosh waxa u xaqlinayaan u xiilinayaan inuu yahay Kenyan oo markaasi arinta keeska badda uu ka xanaaqsan yahay dhacdada 15kii dhacday iyo maxkamadda oo 15kii bilaabatay isku beeg noocaas ah dadka qaar oo sameynaya arkay marka aan kala qaadno Cabdirasaaq Catoosh haddii uu Kenyan yahay Kenyanimadu ama Kenyanimadu kama saarayso Soomaalinimada anigaba waxaan ahay Somali Kenyan waxaan deganahay Kenya haddana Soomaali baan ahay Soomaalinimada igama saarayso inaan Somali Kenyan ahay waa khaldami karaa qofku oo fikir kastu aaminsan karaa laakiin inuu Somali Kenyan yahay kama saarayso Soomaalinimadii uu dhashay taasna waa qodobka labaad qodobka saddexaad arintu waxay ka dhacday waa Jigjiga ma ahan Kenya ama Nairobi ama gobolada kale Kenya ma ahan haddii xataa la yiraahdo waa Somali Kenyan Cabdirasaaq Catoosh dhacdadu waxay ka dhacday waa Ethiopia waliba ninka la leeyahay Cabdirasaaq baa u gacan qaaday waa isaga ayaa ah xildhibaan dowladdeegaanka Soomaalida ka tirsan marka haddii ay noqoto mansab iyo awood iyo maxaa la yiraahdaa jago qofka eedda tirsanaya isagaaba markaasi ah xildhibaan dowladda ka tirsan ama dowladdeegaanka Soomaalida ka tirsan marka waa fiicnaan lahayd in markaas sida loo kala saaro oo Soomaalinimadu iyo Kenyanimada ama Ethiopianimadu laba kala tahay anigoo Soomaali ah ma waxa noqon kara Somali Kenyan waxa noqon kara Somali Ethiopia ama Somali Djibouti ba noqon kara qof kasta oo Soomaali ahna dabcan deegaan ku soo jeeda meel uu degan yahay meesha uu degan yahay Ilaahay ku beerana dooq ma ahayn isagu mu dooqanin Ilaahay baa ku beeray marka kama saarayso Soomaalinimadii isagu ma dabcan aaminsan kara fikir kasta uu ku soo horjeedi kara qolo uu taageeri kara qolo macna badan ma sii sameynaysa kama saarayso Soomaalinimada marka way fiicnaan lahayd in sida loo baaro loona socdo dhinaca kalena la baaro oo ma la dhageysto Cabdirasaaq Catoosh waa la heli karaa telefoonadiisa waa la heli karaa Facebookiisa in isaga laftigiisa la wareysto ama la dhageysto arintan iyo waxa uu ka jawaabay ama jawaabta ka bixinayana aad bay u fiicnaan lahayd marka arrinka ayaan lagu degdegin dhinaca kalena hal la wareysto ilaa hadda hal dhinac baa inoo warramay aad baa u mahadsantiin salaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh